intii aad sheegtay waa in deegaanka u samaysay horumar oo ah meel fiican ee xilli fiicanna aan ugu wareejisay waxaan leenahay jazakallahu khayr aad ma mahadsan tahay runtii waa wax ku qoran taariikh ku ah aan kugu xisi doono haddaan nahay maamulka cusub ogana tagi doono dadka deegaanka ee aan maamulno reer Hobyo shalaan isla hadalnay waxaan ballanteenu ay tahay inta gudoomiyuhu uu sheegay in ka badan in nala kala wareego maalinkeena aan wareejin doono xilka hadii ay dhacdo deegaan mid ah oo runtii boorkii xafladu qoraahdeen aniga iyo muqtaar la soo qaato ah deegaan mid ah dad mid ah ee deegaan horumarsanna inaan ka shaqeyn doono oo reer Hobyo aan uga tagi doono dhaxal ah wada tashi isku tashi iyo horumarinta deegaanka si aan la tartano deegaanada kale ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Galmudug waxaan rabaa inaan dhowr waxyaabood oo runtii aad muhiim u ah inaan hoos tago reer Hobyo waxaan leeyahay hoostiday horumar ma gaaro dii anaga isfiirino oo dhaano meeshaan in hebel ku fiican tahay meesha anaga ugu fiican tahay tanana anagu cunay ku fiican tahay horumar ma gaaro horumarka waa la sheegaa laakiin soo og yahay ina ogaatiin baa la rabaa adduunyada ama deegaanada kale waxa Hobyo ka jira ay kama jiraan adduunka waxa ka jira magaalooyinkiisa inay leedahay laamiyo inay leedahay isbitaallo caalami ah inay leedahay iskuulo qurux badan oo wax lagu barto waxbarashadu tayo leeyihiin inay leedahay meelo cilmiga diinka islaamka lagu barto inay leedahay meelo dugsi quraanku inuu leeyahay madaaris oo hadda laga gudbo dugsiyadii lagu xaroonayo oo bacaadka carruurta la fariisinayay in loo gudbo madaaris oo quraankii sharaf loo yeelay oo runtii ay carruurtii ay libisanayaan oo marka wax badan oo badan ba deegaanada adduunyada iyo kuwa Soomaaliyeed ba ka dambeynaa waxa rabnaa si wada jira inaan u gaarno insha Allah xin iyo xaaladoodu waa meel bannaan oo dagaal iyo qax iyo qaxooti ah weena ka gudubnaa waxa anagu idin nahay shaqaale ma nihin madax la way doono madax lagu dhibtood doono ma nihin waxa idin nahay dadkii idii adeegi lahaa dadkii aad dhihi leedeen tan qabta tan joojiya waxaan nahay oo wax ku nahay oo qaado doonaa taladiina waxaan rabnaa halkii wax lagu dumi jiray in wax lagu dhiso raali ahaada ma tidin dad wax dumiyay runtii laakiin waxaan rabnaa shakiga iyo kala qoqobku inuu naga dhamaado